sanadkii 2009 dawladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheekh Shariif waxay heshiis muran badan dhaliyay oo uu saxiixay wasiirka qorsheynta xilligaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame la gashay dawladda Kenya sida sharciga ah waxa heshiisyada dibadda ee xukuumadda wakiil uga ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya balse taasi ma ay dhicin waxa xuquuqdeena anaga marna uga tanaasulmayno laakiin haddii anaga tabarteena aan ku qanacno dawladdii markaas jirtay inay wada hadal ka galno Kenya la hadalno sababtoo ah looyaro lacag ku qabsanana ma haysan malaayiin dollar oo maxkamadda tagana ma haysan mana aaminsaneyn dawladda transition ee awooddaas inay leedahay ay maxkamad caalami keeska ku hayso sababtoo ah maxkamadda hal riski leedahay abiil ma laha hadii laga adkaado keeska waa Allah ka horweynay Allah ku dhashay keesku abiil ma laha marka anaga taxaddar iyo waxaan ku qaadanay go'aanka waliba aniga go'aanka waxba kama qaadan والله وزيرada fadhiisto aniga aan joogin madaxweynahay u tageen go'aanka saasa lagu gaaray waxaan ku saxay waxay ahayd collective responsibility waxa la yiraahdo mas'uuliyad wadareed ee dawladda lahayd wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Omar oo 6 Abriil 2009 Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa difaacay heshiiska isafgaradka ah ee uu saxiixay wasiirka qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur marka qodobku waxa weeye kontraag lama saxiixin heshiis lama gelin memorandum of understanding waxa la yiraahdo qoraalka kaasi la isku saxay oo iska cadayn oo kala ayaa la saxay marka dawladdu ma ogola mana bixinayso waxay ka diriraysaa bariga iyo badda dadka iyo dalka Soomaaliya in halkaas ugu yaraan iskala ama sheegato ama la wareegi taasi mid dhacaysa maaha dawladduna ma ogola dadkuna ma ogola dawladduna ma yeelin dawladdii madaxweyne xasan ayaa dacwad ka gudbisay dawladda Kenya waxayna dacwadaasi u gudbisay maxkamadda cadaaladda ee Hague bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalintii labaad oo ay socoto maxkamadda cadaaladda caalamiga ah oo qaadaysa dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan badda dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka iyo isku duubnaanta iyo midnimada ay ku wajaheen arrintan oo ay muujiyeen in tani ay tahay waxaan lagu kala qaybsami karin xiriirlaaliyaha qaranka oo dawladda Soomaaliya u wakiilatay arinta dacwadda badda ayaa difaacay heshiiskii MOU-ga ee uu saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur kuna tilmaamay inuu badbaashay badda Soomaaliya anigu shakhsiyan xiriirlaaliye ahaan mas'uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan ibna aan hogaamiyeysanayn waxaan aaminsanahay shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waad arkayseen qaranadu inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay dad Soomaali lagu bixinay ma ahayn in dad Soomaali lagu gadanay mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaara lagu galay ujeedadiisu waxay ahayd oo kaliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda ee khusaysa continental shelf-ga ama qorshe qaaradeedka labada wadan si ay u gudbistaan in aan wadanka kale uusan horistaag ku samaynin madaxweyne xasan ayaa sheegay inaysan ka tanaasuli doonin taaka kamida biyaha Soomaaliya arwa mar kale inaan dadka Soomaaliyeed ugu celiyo aniga oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya intaba waxaan si cad dadka Soomaaliyeed ugu ballan qaadaynaa marna inaanan tanaasul ka suubinaynin 1 mitir oo kamid ah biyaha Soomaaliya marna ma ogolin mana ku hadlin mana isku soo qaadin qalbigeennana kuma jirto 1 mitir oo kamid ah biyaha Soomaaliya in tanaasul laga sameeyo markii ay dhalatay dawladdii madaxweyne Farmaajo
waxay dadku ku hanweynayeen inay halkeedii ka sii wadi doonto dacwadda badda Soomaaliya waxaana dadka inta badan ay madaxweyne Farmaajo ku taageereen inuu yahay ruux jecel waddanka ma jirto khudbad ama hadal qoraal oo uu madaxweynuhu kaga hadlay arrinta dacwadda waxaana intaa dheer inuu istaagay kiiskii dacwadda badda aamusnaanta dawladda waxay shaki gelisay dad badan haddaba su'aasha ayaa ah haddii Cabdiraxmaan badda gatay Farmaajo muxuu uga hadli laayahay mase horay badda looma gadanay hadda ayay suuqa taala jawaabta waxaan u daayay shacabka Soomaaliyeed